way dhici kartaa in cunto lagu samoobo haddii ay dadku cunaan cunto ay ku jiraan bacteria, parasite, virus iyo sun. Kusamowga cuntada waxaa lagu gartaa calool xanuun, shuban, matag, lalabo ama yeelaalugo iyo amateedku qofka ka luma. Cuntooyinka qaarkood ayaa keeni kara kusamowga cuntada gaar ahaan haddii aan si ku habboon loo kaydin, diyaarin ama aan loo karinin. Haddaba waxaan halkan ku soo gudbin doonaa qaar ka mid ah cuntooyinka badan ay dadku ku samoobaan. Digaaga. Hilibka qaylin aan sida wacan loo karin sida digaaga ayaa khatar weyn oo sababi karta kusamowga cuntada. Arrinta ugu weyn ayaa bakteeriyada ku jirta iyo bakteeriyada dheefmareenka sida Campylobacter iyo Salmonella. Si halistan hoos loogu dhigo, hubi inaad si dhammaystiran u kariso hilibka digaaga kana fogaan weelka kale si aan u taabanin. Khudradda nooca doonto ahaato marka qaylinka lagu cunayo guud ahaan cuntada waxaa ku jiri karta sun. Xaqiiqdu waxay tahay in khudradda qayb ka mid ah ay keeni karto sunta cuntada ka dhalata si gaar ah saladhka, kaabashka iyo tamaandhada ama yaanyada. Waxaa ku jirta bakteeriyada halista badan ee E. coli, Listeria iyo Salmonella. Si loo yareeyo halistan, had iyo jeer maydh ama dhaq khudradda ka hor intaanad cunin. Kalluunku guud ahaan waa isha sumowga ee cuntada. Kalluunka aan sida saxda ah lagu kaydin heerkulka ku habboon waxaa dhici karta in la soo daayo histamiin. Waa sunta ay soo saarto bakteeriyada kalluunku. Suntan histamiin laguma burburin karo karinta caadiga ah waxaana keentaa sumowga cuntada. Waxaa lagu gartaa astaamahan lalabo ama yeelaalugo, matag iyo wejiga qofka barara. Si looga hortago halistan, fadlan ku kaydi kalluunka heerkulka saxda ah. Bariisku waa mid ka mid ah cuntada ugu faaca weyn waxaana lagu qiyaasaa inuu yahay dooqa koowaad ee in ka badan kala bar dadka dunida. Bariiska aan sida wacan loo karinin waxaa ku jiri karta bakteeriyada halista badan ee dahaadhka leh Bacillus cereus taasoo sababi karta sumowga cuntada. Si hoos loogu dhigo khatartan, si wacan u kari bariiska una kaydi sida ugu habboon. Beedka ama ukunta. Inkastoo beedka ama ukuntu ay tahay cunto nafaqo leh oo cajiib ah, haddana waxay noqon kartaa cunto lagu samoobi karo marka la cuno iyadoo aan si fiican loo diyaarinin. Sababta ayaa bakteeriyada Salmonella taasoo ku jiri karta dahaadhka iyo gudaha ukunta ama beedka. Kusamowga beedka ama ukunta ayaa 79,000 oo xaaladood la arkaa dunida sanad kasta sida ay sheegtay hay'adda cuntada iyo dawada ee Mareykanku. Ugu dambeyntii talo caafimaad ka fogow cunista beedka leh dahaadhka jajaban ama burbursan.